السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل هادينا مهتدين. إلهنا قدك كوها ننصن تذكنا هنولي دمان تذكر برنامج كقفاعه كدعوانا سومالي كريان تي في كان دقيسنا يا راديو بورمي CKMS 102.7 FM. برنامج كقفاعه مانتو أمالين سنينة بيشا جون سيدير لaba kun lix iyo labaatan waxaynu ku soo qaadanaynaa waxaad ila daawataan soo dhaweynta loo sameeyey suldaan wabar gobolka awdal salaadiintii iyo shacabkii oo si fiican u soo dhaweeyey وارني هرقبي إلا بدي بريبا دولكينينا وأول تجينا إلا سيدا يلا كيا هذي الله يجعل سبرون قول سبرون يا رجالي dadka barnaamijka meel walba ka daawanaya halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali TV Radio Forum dadka barnaamijka meel walba ka dhageysanaya suldaan wabar runtii waa suldaan aad ogtihiin taariikhda meeshii uu ka soo maray suldaankan waxaan ka hadlay wareysi layga wareystay waxa aan rabaa dadka meel walba iga dhageysanaya in uu reerka uu ka soo jeedayo reer mayal adag reer runtii waxna diidi kara waxna ogolaan kara ay yihiin waa beesha Jibyoon waan arkay comment-ka dad ku qoraya reerka kala saarsaari waxaan u kala saarsaarayaa wixii wanaag leh ee ay qabteen in la qariyo ma wixii khaladana in la saxaway waxyaalaha la yaab kala way dadku iskuma jiraye kada buswaynu isbarto way oo kala baxo oo ninka runta sheegaya ninka daacada la isbarto halgankan waxay ahaayeen dadkii meel dheer gaarsiiyay suldaanka iyo waliba saddex hablood oo magac weynaa oo mid dhimatay ilaahu naxariistee cibaado xasan oo dhimatay ilaahu naxariistee waa cibaado geele loo oranay macruuf ahayd oo aan runtii aad u xasuusto ilaahayna uga baryayo jannada firdawso inuu geliyo waxa haray waa cibaado axmed iyo sahra sacad oo mar dhaweyd magaca khalday way saajin walaalihiin sahra sacad waxay tahay qof sari active waxay ahayd dadkii la garab taagnaa halganka lacagta iyadii gabdho kale oo fara badan oo garab buusiya hablaha waxaan soo qaadanayaa wax kale ma halganka waxbay dheeraayeen waxay ka muuqatay shucuurtooda iyo dareenkooda waxa ay rabaan waxa garab buusiya ay la rabaan intaas anigu waxaan ugu sheegaya ay tahay dadka oo aan gaarsiinaya dad dadaal badan bixiyay bay ahaayeen garab buusina la raba wanaag iyo sharaf waxa ay waliba ahaayeen dadkii dhaqaalahooda iyo waqtigooda inta badan u horay halganka ee lahaa maxaynu samayn karnaa sidaynu uga dagaalami karnaa suldaan wabarna ninkii cilada u galay ee rafaadka iyo dhibta u galay ee ku xanuunsaday ee ogeydeen buu suldaan salaadiinta boorame sidaan horeba u sheegay waa lagu qiyaamay nin dhintay iyo nin noolba warkayga inuu dhageysto weeyaan waayo iyadoo meel fiican garab buusimada iyo la isku raacsan yahay dhexda laga baxay rag baana waxaan ka shaqeeyay waxayna ahayd dawladda Ethiopia iyada galwadeen waxay iyada u dhaxaysay garab buusi iyo isaaq inay loolan galaan oo siyaasadda uu ku galo wabar ninkii bilaabay buu ahaa salaadiintu dhexday ka baxeenoo waa la jabsaday lacagaa la siiyey waa la kala qaybiyey waxay keentay xitaa iyadoo halbankii meel fiican marayo waxa aan u sheegayaa dadka in walaalayaal ay noqotay in la khiyaameeyo garab buusigoo gab iskuul la yiraah oo beelaha maxalcasi meelaha jooga ay suldaankii dhintay maxalcasi iyo suldaankan dawal iyo rag kale ay yimaadaan oo la yiraahdo ugaaskana ha loo yeego halkaas waxay halka sartu ka quruntay ee ugaaskuna uu tagay ee madaxweynihii markaaba ra'iisul wasaaraha Itoobiya soo kan ugaaskii niina uu baxaafidkii sidaas ku bacaar ku jid halganka halka laga dabar jabiyay meesha gabta la yiraahdo in badan dadku waxa laga yaabaa inay yiraahdaan reerkaas ka dhalatay waa maxalcasi waan ogahay inaan maxalcasi dhibaatada ugu badan ee Soomaaliland taagan qayb weyn bay ka yihiin haday ciise noqoto oo ay leeyihiin abtiyaalada iyo way waan isdalnay way ka xigsadayaan garab buusiga kala dhulka iminka waxa garab joogay oo maqlayseen warkiisa hadlayay ninkii suldaan abshir wuxuu aan ninkii markii la xiray ee uu sayl xiray dadkii aad ugu hadlayaan ahay dadkii u halgabayaan maalintii uu ka soo baxay muxuu yiri isagoo reer abtiyaaladii u jeeda oramadii buu ku tilmaamay maantana way idinka maqlay khudi العفو ولا يسعفني
ilaahay dadkii baa la isku cafinayaa waxaad ogaataan saylici nimanka bahabar celiya imika xitaa ka saylac aad arkaysaan gobolladii u keenay ee in badan nimanka bahabar celiya qaylqaylaya hadlaya waxaan u sheegayaa war ninka aad arkaysaan saylic reer maxamed baa soo saaray maxamed baa soo saaray xaamud jibriil ilaahu naxariiste isaga ayaa soo saaray waxaad case u yimid ninkaasaan wataa buu yidhi hadalkii maalintii la weydiiyey waxay axmed faarax coofle maanta waa xanuunsan yahay ilaaha caafiya wuxuu yidhi war saylici isagoo dawladda hoose maxaad u socotaa wuxuu yidhi waxaan rabaa dulmiga ina haystayna waxay gaadhay saylici in isagoo madaxweyne ku-xigeenna tolkii lagu garab xidho kuwaa weeye ku maxadacasee layleeya waxbaad wada dhalateen ee maanta aan gadabuursi ay rabaan in layska xigsado oonaan ogolaanayn ma aaminsaniba anuu 3 dhardhaar wax la yidhaha waxaan aaminsanahay wax la yidhaha qadiyad gadabuursi suldaankii dhintay ilaa xasee maxadacas gebile isagoo joogaana 6 goobood maalintii kaalay suldaanku haddi kari waa ciidna way ahayd niman imika waan maqlay meelaha qaylqayliyo wax yidhaah imikada lafteeda reeruhu iskuma jiraan dadkuna isku mid maaha damiirka iyo kulkulaylka iyo raganimadana ilaahay baa bixiya reerka anigu waxaan ku jecelahay oon ku garab istaaganahay waxna way diidi karaan waxna way dooni karaan laakiin reerka maxamed casan la yidhaha iyo habar cafaan somaliland waxay ku dhex joogaan waxay tahay munaafiqiin la yaqaano wey oo gadabuursi dhexdii labaduba aad moodo inay kuwan kalena iska ilaaliyaan iyaguna ayna isku haynin daacad anigoo aanan jeclayn inaan u gafo laakiin haddana xaqiiqdu waxa ay tahay reerkan in la garab istaago la garab galay hay laakiin yaa dhabarka ka jabiyey labadaa reer sheegay ahay waxaa dhabarka ka jabiyey ciddii ku farxaysa iyo ciddii ka naxaysayna I don't give a damn haddaan idin sheegaya nin danaynaya ma yihi sababtoo ah labada reerba waa naqaanaa meeshan boorame la yidhaahna 3 reer baa saaxiib ku ahaan jiro hadii jeer kaftami jir reer walbana reer buu ayaa ka haybaysan jiro ay daba joogeen ay maqli jireen reer axmed jibriyoonis bay ahaayeen reer maxamedna maxaad casoo dhan bay ahayd nimanka habar cafaan la yidhaahna reer nuuriyagu camuud bay ahaayeen booramena maayir bay ka yihiin damacooguna uu fara badan yahay imikana waxaan idiin sheegayaa ninkii uu kulkululaa ee soo mara madaxweyne ku-xigaan ee uu ka seexan waayey ninka la yidhaahdo maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan aw cali buu ah raganimo iyo kulkule ilaahay siiye buu ah saylici idinkii maalintii dhaweyd maqliya wixii uu lahaa dhowr iyo 10 sannadood meeluu ka shaqaynayo wuxuu leeyahay waan iska fadhiyo caqliga ayaa laga iibinayaa abtigayna waxaan leeyahay maanta waxa lagu hayaa isagoo le gadabuursow xuquuqdiina kamaba hadlaysaanba bal ilaah baan inagu dhaariyay ma siman yihiin dadka sidaasi nina dulmi buu ka cararay oo uu diiday nina dulmigiibuu huwayaho gadabuurso buu rabaa isagu inuu dhagaysto oo maxaad case iyo habar cafaan iyo makaahiil reerka la yidhaah maanta waxay u baahan yihiin miiska wada hadallada in la fadhiisto qabyaalad in la iloobo wixii shalay dhacay la iloobo wixii maanta taagani waxay tahay hadalkaas suldaan wabar leeyahay oo ah saylacan iyo lughaya iyo deegaanadeena horta ciise mid baanu sheegayaa oo ah ciise galbeed ayaynu iska gaadhnaa in badan maxaad case iyo rag badan waxaan u sheegayaa ninka sirnayntaada diida sarayntiisa ogolaani innagoo inankii aan dhalleen korine ama raw siduu hadlayaan maqlayno waxay noo yaalaaba ma jira inaanu iska difaacno dhulkeena iyo dadkeena mooye cirdigeennana ilaashano mooye laakiin waxaan idiin sheegayaa suldaan wabar wax fiican buu inayla yimid wax wanaagsanna waynala qabanay laakiin idinkuuniyaydaan noqon kuwii shalay dhabarka ka jabiyey ee aad ogeydeena wixii la ogaa sameeyey waxaanaan idin leh oon idinkula dardaarmaya ama makaahiil ahaw ama maxaad case ahaw ama jibriyoonis ahaw ciddaa doontaba ahaw oo maanta waxaa loo baahan yahay degaankeennii duulaan baa lagu yahay waad og tihiin ciise oo jabuuti aan ogeydeen shalay bal hadda eega 2 meelood bay baabuur ka bixi jirtay afanii fantasy iyo afanii tarays labada yaa kala lahaa isaaqiya iyo gadabuursi baa kala lahaa gadabuursi iyo isaaq xoreynta jabuuti marka la yidhaha qayb bay ka ahaayeen laakiin maanta yaa wax ka ah cid walbana way ogtahay gadabuursi muxuu ka yahay dibaddaa loogu tuuray haddana inankaan abtiga u ahay wey innagaa dhalay waana ogeydeen wixii ka dhacayna ani 192 dib idinku celin maayo laakiin waxaan idiin sheegayaa taariikhdu iyada isqori runtuna way iman cadaaladuna way iman inagu maanta dhulkeena iyo deegaankeenna inaynu ku adkaano oo layna siyaasadayn oo aan wixii la raba laynoo sheegin inagu midnimo aan ka shaqayno waad og tihiin dhulkeena iyo deegaankeenna 35 by 35 baa lagu soo durkay yaa ku soo durkay habara war 35 ba ku soo durkay halkan kale ciise oo idinka arkayaba guban oo dhan bay sheeganayaan deegaankeenii oo dhan bay sheeganayaan waxay rabaan inagu buuraha inaan tago alaysa minkum rajulun rashiid waxaan ilaahay dhammaan midnimo laynaga rabaa waxa laynaga rabaa dhulkeena iyo dadkeena inaan difaacno inagoo cidna duulaan ku hayn
وأنا حامد سلطان علي علمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.